maxkamad ku taalla magaalada Edmonton ee Canada ayaa shalay wiil Soomaaliyeed oo 33 jir ah ku xukuntay in lagu wareejiyo dowladda Mareykanka oo dalbatay soo gacan gelistiisa maadaama uu ku lug lahaa olole ay dhalinyaro dhowr ah oo Mareykan ah iyo Canada ay uga qayb galeen dagaalka Suuriya iyagoo la safnaa jabhadda dowladda Islaamiga ah. Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi oo 33 jir ah ayuu qaaliga sheegay inuu ku qancay eedeymaha la hor keenay maxkamadda ee ka dhanka ah Cabdullaahi oo ay ku jireen lacaga uu u diray dhalinyaro ay ehel ahaayeen oo mid ka mid ah uu ka tegay San Diego Mareykanka iyo 3 kale oo ka safray Edmonton Canada iyo emailo sir ah oo ay wadaageen dhalinyarada baxday iyaga oo ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka ISIS. xeer ilaaliyaha dacwadda ku soo oogaya Cabdullaahi ayaa sheegay inuu qirtay dhac ay u geysteen dukaan dahablaha oo ku yaala Edmonton Canada oo isaga iyo ilmaadeeradii ugu talagaleen inay dhaqaalaha laga helo ku taageeraan dagaalka dowladda Islaamiga ah ay ka wada bariga dhexe. 4 dhalinyaro ah oo ay ilma adeer ahaayeen Cabdullaahi kana kala tegay Canada iyo Mareykanka magaalada Edmonton ee Canada ayaa shalay wiil Soomaaliyeed dagaalka ISIS xilli lagu qiyaasayo wareejinta dowladda Mareykanka oo dalbatay soo gacan wiilkiisa lagu soo gaabiyay Bashiir oo markii hore ka mid ahaa kooxda Mareykanka iyo Canada ay uga qayb galeen dagaalka Suuriya iyagoo la adeer yihiin dowladda Islaamiga ayaa hay'adda Axbarista Mareykanka FBI heshiis la gashay ayuu qaaliga sheegay ku qancay eedeymaha la hor keenay maxkamadda ee ka dhanka ah Cabdullaahi oo ay ku jireen lacaga uu u diray dhalinyaro ay ehel ahaayeen qareenka u doodaya Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi ayaa cadeymaha la hor keenay maxkamadda ku tilmaamay kuwo dhalanteeda waxaana uu sheegay inay cadeymahani aysan ahayn kuwo la xaqiijin karo tusaalena waxa uu u soo qaatay xeer ilaaliyaha la keenay maxkamadda Cabdullaahi ayaa eedeynayay inuu Cabdullaahi wax ka qoray qareenka ayaa ku doodayo inaan la cadeyn karin emailadan cidda qortay iyo xilliga dhaqaalaha laga helo markaasna ay adag tahay in la cadeeyo in ay ka Cabdullaahi wax ka qoray xukunka qaaligan ma aha kama dambaysta Cabdullaahi kala tegay Canada iyo Mareykanka dalka Mareykanka waxaa ka hor ku dhintay dagaalka ayska cadaaladda dalka Canada Cabdullaahi waxa kale oo uu xaq u leeyahay inuu rafaan ka qaato go'aanka Bashiir muddo 3 markii hore ka mid ahaa kooxdan sidoo kalena waxa uu warbixin faahfaahsan u diray karaa wasiirka cadaaladda ee Canada si uu ula wadaago hay'adda waxa uu arka dacwada in ay ku salaysan tahay shaqaalaysiisay lacag gaaraysa 173,000 si uu u soo gudbiyo xogta dhabta ah oo dhammaystiran. hase yeeshee qareenka u doodaya Cabdullaahi Axmed Cabdullaahi ayaa cadeymaha la hor keenay maxkamadda ku tilmaamay kuwo dhalanteeda waxaana uu sheegay inay cadeymahani aysan ahayn kuwo la xaqiijin karo tusaalena waxa uu u soo qaatay emailada la keenay maxkamadda oo lagu eedeynayay inuu Cabdullaahi wax ka qoray qareenka ayaa ku doodayo inaan la cadeyn karin emailadan cidda qortay iyo